booliiska maxaa wax looga sheeganaya dee wada dhib wada dhibta yuu ka wada hadda dad suuqa tagtay qof waliba uu ku sheegaya hadda askariga wadada taagan ku oran kari maayo markuu ku joojinayo istaagi waa inuu horta gaariga dhibxa ku dhufta adiga kalarka kugu dhiga kadib uu koranaya istaag marka anigu waxaan ku soo koobaya saddex mas'ala hadaan booliiska laga bedelin dhibaatadiisu tariga istaagmayso kow nidaamka shaqo qorista hadaan la hagaajin oo dadka aan hagaagsanayn laga eriyin booliiska kow laba nidaam xisaabtan oo ka madax banaan booliiska hadaan la sameeyo saddex qaab dhismeedka booliiska hadaan la bedelin inta booliisku madaxweyne iyo ka amar qaadan iyo agaasimo iyo barastaab inuu xaqayga ilaaliyo macquulba ma hadii madaxweynuhu necab yaanu hayno oo booliisku asaga ka soo amar qaado sida xaqayga loo ilaalinayo hadii TV-gan wax ka sii daayo madaxweynaha khudbadda jimcaha sii deyn waayo madaxweynaha oo dabadna la xil khudbad bad sii deyn wada booliiskuna qafil saaro xuquuqdooda ilaalinayo oo tiimarka ma tayadu ilaalinaya mise buu shaqeeya ana waxa rabnaa booliisku inaanu cid ka amar ku talaabo ma taalo dastuurkana Soomaali buu ku qoran hadaan ku dhiibo waaga su'aasha ku weydiiyay laakiin hayd amaanta booliiska maya tii ahayd in maxay hayday adigu aad laftirkaaga waa jabinaysid aniga dastuurka akhriyo dastuurka ila jira booliiska amaanteedu shaqadeeda ma radio hargeysa u qaabilsan radio hargeysa iyo idaacada TV-ga u qaabilsan amaanta xukuumadda aniga shaqadeedu waxa weeye islaanta ii soo cabatay leh hooyo waan xiranahay inankaygiiba ayaa la dhibaaxay ama ninka walaal cagacad hadda tagtid maxkamadeena waxaad muddo slave trade waxay silsiladaysa isugu xidhan yihiin mise loo jiiday iyaga cagacad slave trade baad moodaysaa marka ma dadkaas aynu u doodnaa mise waxaanu ixtiraamnaa qofka shaarkiisa sidee madaxda waagaag hogaanka howlgelinta ciidamada booliiska Soomaaliya qolkiiba 90 sharciga raacaan iyo inay boqolkiiba 99 sharciga raacin waxa lagu kala cadeyn karaa oo dadka xidhan hadii soo wareysan dadka xidhan hadii soo wareysan wax qaba inay wada raacayaan anu loo yabaan maxkamadan ka shaqeeyo askari booliis oo waaran doonaya lama arko way soo qabtaan maxkamadda la geeyaa hadhowta maxkamadna wax la yiraahdo xalaaleen la yiraahdo ka jira waan sharciga meel kaga qoran imsan ku siiya 3 cisho 7 cisho dawladda jeelka loo dira taawudan baynu ku sheekeeran ka maragina waan keensan karaa laakiin aniga waxa iga muhiimsan in institution-kii shaqeeyo hagaago oo fiicnaado because ana ammaankaygana uu ilaaliya dalkaygana way ku xidhanta way waxaan doonayaa inaan xasuusiyo qofka booliiska dharka xidhan qofka shacabka dawlad buu yaqaan askariga dawladda hadduu dhirbaaxino dawladda baa dhirbaaxday hadduu soo dhaweeyay dawladda baa soo dhaweysay marka si dawladdeedu ugu hagaagto in booliisku hagaago muxuu ku hagaagay kow wuxuu ka imaagay xisaabtan buu ku hagaagay booliisku binaadam buu la shaqeeyay isna uu gefi karaa waana lagu gefi karaa booliisku Soomaaliland waxa laga kari laayay uu diiday in la sameeyo guddi madax bannaan oo cabashooyin aan isla booliiska ahayn ilaa aniga wax ku geysanay anigana ay soo cabo ma dhici kartee oo dabadeed intii cabashada dhigeysato dadku uga naqdan ofisayda taalama ogola waa kow laba booliisku waa military maanta gaashaanle iyo generaal in booliiska maamulaan ma ahayn ingiriiskana kuma maamulaan taas 1970 waa maxay siyaad barsamay in laga guuraabay hesufiliyaan noqdo oo police commissionaries ay maamulaan iyo inspectors oo dabeedna noqdaan dadaan xoog ahayn ee daadegsan oo kolka magaalada Hargeysa aanu generaalka guud maamulin iyo jiraalka hawgeliye ninka magaalada district haysta oo dawladda hoose la shaqeynaya oo maamulo tiina ma jirto marka waa qaabdhismeedkii booliiska wax laga bedelaa waa in maxkamadaha caadiga la hoosgeeya waa in qaabka uu dadka u shaqaaleysiyo wax laga bedelaa si qaad tayo leh oo aqoon leh oo akhlaaq la fara badan u soo shaqo tagi karaan وين militarinimada laga guura waana in siyaasadda laga fogeeyo waxa dadka oo dhan dhageysanayaan ka marxaati furayaan in booliisku aad siyaasi u yahay muxuu aad siyaasi u yahay maanta madaxweynuhu soo amro in wasaaradda halkan la xiro booliisku way xirayaan boqol baan ku qanacsan wayna dhacday wasiirka arrimaha gudaha hadduu soo amro way dhacday wayna dhici doontaa kaasi booliis sax ma noqonayo booliisku waa in madaxweynaha ku oran karaa amarkaaga waan diiday madaxweynaha laftigiisa waa inuu baari karaa hadduu khaldo laakiin guuleed markaad leedahay booliisku amarka madaxweynaha hadiidaan soo meesha kama baxayso kala dambeyntii amar qaadashadii maya booliiska shaqadiisu inuu amar qaato ma waa dhaqanka siyaad bare laga dhaxlay booliisku inuu sharciga ku shaqeeyo investigation sameeyo xilaalinta la shaqeeyo markay amri orderka noqotay kala dambeynta magaaladana waa inuu ninka district degmada haysta la shaqeeyo waa shaqadaas waa shaqada militariga amarku soo jeesantu waa shaqadii militariga ee shaqadii booliiska ma halkaas laakiin ka qaadanaya marka wuxuu ka qaadanayaa maxkamadda oo kaliya xeer ilaalinta ما ها شقادة مدحونا وزير كهرماء جودها يلا كسرية إنه سياسة دي هو حكومة موجودة سياسة كوميدية والمرشحين توعيد البوليس كصحيح ما أنت مديرك وحين دم بيجي قالنا هلا شيء مدم بالدولات بيجي قال مثل دم بالخيارات بيجي قال فودي إيرا ورث التدبير عشتون محكمة اللي يقول هالك سيس كي حري كوا ما أنت بورم اللي يقول إيريا يا محيسمي مركي يونيفرسال تي في اللي حري مدم بيجي قال المحيط أم إيريال تي في أم هوريال تي في أنا وحرب بوليس عن سياسي هاي marka waxa rabaa anigu booliiska intii habeen lagu sameeyo isagana xuquuqdiisa la ilaaliyo lacagta loo kordhiyo saacadaha shaqeeyo la yareeyo 8 saacadood wax ka badan inaanu shaqeynin oo askar badan la qorto mushaharka loo badiyo laga ilaaliyo mushaharka laga yareeyo commissioneeriskan iyo dadkan siyaasiyiinta lacagta badan la siinayo isla markaana in la xisaabiyo oo aanu noqonin gacanta qofka siyaasiga uu noqdo qof madani ah baan bismillah